السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muddo 20 sano waxa uu xanuun la jiifay sariirta dusheeda. Waxa uu ahaa hawl ka mid ah hawladii ugu caansanaa ee soo maray geega Soomaaliyeed. Wuxuu si aanan qiyaas ahayn u aaminsanaa wadannimada, isagoo aanan ka tagin dhulkiisa hooyo inta ay dhacayeen qalalaasihii burburkii dalka soo maray. Waxa uu ahaa wadani hiil iyo garab ka waayay dadkiisa iyo dawladdiisa. Waxa uu lafdhawar iyo halbowle u ahaa fanka iyo sugaanta mid ka mid ah tiirarkii halbowlaha u ahaa fankii Soomaaliyeed ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Allah u naxariistay Cabdi Tahliil Warsame oo ahaa lafdhawar mid ka mid ah halbowlaha waa hawl aan iloobi doonin shucuubta Soomaaliyeed. waxa uu xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho, waxaana maanta lagu aasay isla magaalada Muqdisho. Allah u naxariistay Cabdi Tahliil Warsame waxa uu jiray da'da 68 sano cimriga tirsiga noloshiisa, asagoo dhashtay sanadka markuu ahaa 1952. waxa uu ku dhashay gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya. ma aanan helin taariikh nololeedkiisii waxbarasho, balse xifradda ugu caansan ee uu lahaa waxa ay ahayd midda fagaara ka hadalka. hibooyinka uu lahaa hawlka waxaa ka mid ahaa jiliin, laxamiiste iyo heesaa. fanaanka heesihiisa waxay isku jireen kuwa wadani, kuwa jecel iyo weliba kuwa guwaawi. heestii ugu horeysay ee uu ku luqeeyo waxa uu qaaday sanadka markay ahayd 1968. fanaanka sanadkii xigay 1969 waxa uu qaaday heestii Onkod, waana midii fagaaraha keentay ee uu ku soo caanbaxay fanaanka. waxaana heestaa sameeyey Axmed Saleemaan Bide. waxa uuna ugu qayb galay tartankii heesihii hirgalay. waxa uuna ku soo baxay kaalinta koowaad ee tartanka, isagoona ku guulaystay abaalmarinta tartankaas. sanadka markuu ahaa 1970 ilaa 80 waxa uu ka mid ahaa kooxdii dhalinyarada ahayd ee Danan. bilowgii 80-meeyadii wuxuu ku soo biiray hawlada caanka ah ee Waaberi. wuxuu ka qayb qaatay bandhigyo badan oo ay sameeyeen hawlada Waaberi, asigoona ahaa shumac ka muuqday hawladaas. heestii ugu dambeysay ee fanaanka uu qaado waxa ay ahayd Maxaan xabaday ku nacay. maxaan xabaday ku nacay xanuunkaaga nebcahay. maxaan xabaday ku nacay xayaata intaad taqiyo xubnahaadna faysayba xisaabiyo tiraa lahaydeen ninkii ku fekeray xumaa. jira tiro heese ah oo ah kuwa ugu sareeyay oo fanaanka uu qaaday, waxaana ka mid ah Soomaali baa leh. Soomaaliya Soomaali baa leh. Soomaaliya Soomaali baa leh. fanaanka Allah u naxariistay heesihii kale uu qaaday waxaa ka mid ah Maangaab inaad tahay. maxaad u laysay maatadii. maangaab inaad tahay maxaad u laysay maatadii. macallinkiiyo waxgaradkii odayadii mudnaayey dadka kala maslixi jiray. reebin heestii kale caanka ahayd ee Onkod.
jacaylood bogan maayo sidoo kale intaan laguma soo koobi karo waxaa ka mid ah sida faras buwaalo iyo jaceyl ayatiin lahaa heestii ugaaso iyo kuwa kale oo fara badan oo intaan aan ku soo koobi karin allaha u naxariistee fanaanku waxa uu ahaa astaanta soomaaliyeed ee sugaanta marka laga hadlayo wuxuuna ku jiraa fanaaniinta ugu caansan ee soomaalida ay ku faanto dhammaan soomaali weyn waxaan leenahay innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun allaha u naxariisto fanaanka soomaaliyeed ee cabdi tahliil warsame